waxa weeyaan haddii reer burcanahay waxaan doonayaa fariin cajiib ah inaan halkan idin soo mariyo dhamaantiin waxa weeyaan maanta aruntii waxay u baahanahay waxay u baahan tahay baa la yidhi arunta anigana saameyn weyn ku leeyahay hadalkaasi burca waxay u baahan tahay waxqabad bay u baahan tahay burca waxay u baahan tahay isbedel laba dhamaantiin waxaan idinku baraarujinayaa haddii reer burcanahay burca waxay u baahan tahay waxqabad laba iyo isbedel laba taariikhdu ku sugan tahay 1986 ayay burca ka nolol wanaagsanay maanta halkaa imanayso 1986 maantana waxaan maraynaa 2021 waxaan dhihi karnaa dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan waqtigaas ayay burca ka nolol wanaagsanayd maanta wax kale kuma kala wanaagsanayn labadaa waqti waxaan dhihi karnaa xagga dhaqaalaha marka la eego nolosha halkaas waxaynu haysanay markaas saylad shaqaynaysa baynu lahayn waxaynu haysanay garoon diyaaradaha shaqaynaya waxaynu haysanay baan dhexe oo isagu ka siirayay dhammaan gobollada kale ee Soomaalida waxaynu haysanay beerihii ugu badnaa oo ay ka soo gaareen haruurkii ugu badnaa waxaynu haysanay haddii aan soo qaato labadii kastan oo midna beriga ku yaalay midna galbeed ku yaalay oo cashuurtu waxay ahayd mid ku soo noqonaysa gobolkeena Togdheer noloshu waqtigaa dhaqaale ahaan meel fiican bay maraysay ama marka qaarkood markaas barbar dhigto maanta burcada 2021 iyo taas dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan waxaas dhacaysaa waqtigaa hore ayay nolol dhaalin sidan maanta ayay ku jirto waayo dadku way fikiraan waxay isweydiiyaan waqtigii intaa maxay ku soo qaateen oo ay soo faa'iideen maanta reer burcadaynu nahay inaynu isweydiinaa maxaa manfaca maxaynu ku qabnaa dowladdii aynu aasaaskeeda iyo guddigeedaba lahayd reer walba iyo oo deegaanka gobolka Togdheer haddii aynu waaqaca aqballo kulli reeraha la isku soo doortaa reer walba oo gobolka Togdheer waxaan doonayaa reer walba gobolka Togdheer in ay soo xulaan xildhibaano aqoon u leh shaqada ay qabanayaan weliba golaha wakiilada waxaynu u baahanahay xildhibaano aqoon u leh dastuurka xildhibaano aqoon u leh sharciga oo wax garanaya oo ka doodi karaya xeerka hor yaalla baarlamaanka ee xeer 2 kaasoo kala sarreysiiyay aan dhihi karo laba degmo oo ka mid ah dalka quudinaya waa xeerka loo baahan yahay golaha wakiilada in lagaga doodo oo dad aqoon liinoo tagaan runtii waan filayaa xildhibaano iyo xildhibaanada kaleba inay noqon doonaan dad aqoon u leh golaha wakiilada sharciga inay noqdaan kuwa dawladda hoose inoo tagaya haddii reer burcanahay waxaynu u baahannahay xildhibaano aqoon leh oo shaqada ay qabanayaan ee dawladda hoose si fiican u garanaya in ariga raacada waxaan doonayaa kulay qoladeedan siyaasiyiinta ay markaan hadlayno hal mar baan bulshada isaleelnayo markaana damaba dhaqaaqno waxaan jecelahay waxyaabo badan aan ognahay inaan la wadaagno maanta burca waa aragtaan walaalayaal waxaa ka jira waad arkaysaano meel walba qashin baa yaal iminka waxaa halkan aad qashinka ugu horeeyaba ku booqanaysaa meeshan la yidhaahdo ciidanka daddabiska dabadiisa sayladda afaafkeeda waa sayladdii xoolaha afaafkeedii baa qashin yaallaayo uraysa waxa uu qashin yaallaayo kale wadahawda dadkii aynu doorannay ee horena waa ogtihiin waxaynu wax ku doorannayna waa garanaysaan doorkii hore war doorkan dad aqoon leh aynu soo saarno oo magaalada wax u qabta oo dadka wax u qabta oo dadnimo leh oo daacadnimo leh oo waxgarannimo leh oo ka damqanaya burca maanta sida ay tahay dhammaantiin aad iyo aad baan idiin salaamayaa